qolo walba waxay horumaraysaa Soomaa ganacsato ganacsigooda ay horumariyaan qolo kasta wax qabsato waxooda ay horumarsadaan hadii la qolo meeshii loo diro anaga tan loo diro waxbarasho way waa inaan waxbarashada horumarinaa maxaan uga hadlaynaa mawduucan maxaan laga keenay inaan hawshan qabanno waa hawsha anaga noo taalay oo aan rabno inaan ku horumarino marka ujeedada ugu weyn oo laga hadlayo warshad kasta waxay soo saartaa wax soo saarkeena rabnaa inaan hagaajino haddaad qof u timaado waxaan rabaa imtixaan kasta ardayba ma kugu imaanaya wuxuu leeyahay saan wax u aqaano oo imtixaanka markaan galo wax oo dhan baa iga kala dhumaaya qofka markaa tiraahdo iyan waa ceeb anna aan leeyahay laakiin saan iyo saan baan isaga xaliyay qofka markaas waxa talaasiisay waxa u daran qofka inuu qarsado waxa qarsato way ku qurunsadaan qofku ma ku qancaya hadii wax la siinayo hadii inteena loo qaybinayo lacag loo qaybinayo maxaa ku qanci lahayd qaybta badan in lagu daro kuwa la siinayo qaybta yar in lagu daro iyo kuwa dhaxaadka lagu daro inteena ka jecelna qaybta saraan jecelna Soomaa qof kasta qaybta saraan jecelna waxaan qaybinayno marka waxa la qaybinayo beegaada ka buuxsaadna maada ma jirta aad isleedahay darajo fiican aad ku haysataa laakiin maada kale oo darajadeeda aad hooseyso taas aad uga fiican tahay soo ma jirto asbaab kasta ha keento laakiin maada darajo fiican 100 aad haysataa 101 ay keeni gaartay waa ku sigatay 101 inaad dhaafto laakiin mid kale oo aad 80 haysataa uga fiican tahay Soomaa macnaheedu darajada kaliya ma aha waxa loola jeedo waxa waaye xagee maxaan qaban karaa waxaan bartay baan ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka maartay umada waxa la yiri waxa tihiin kuntum khayra ummatin sasasma ukhrijat lin-nas khayra ummatin ukhrijat lin-nas wixii lagu sheegana ta'muruna bil ma'ruf wa tanhuna 'anil munkar hadii lagu dhahayo waxa noqonaysa ardada ugu fiican waa in gadaal wixii la sheegi lahaa iyadana la keenaa ardada ugu fiicanaatihiin maxaa ku fiican tahay sasasma maxaa ardada ka uga duwantay qof kasta waa jecel yahay maalinta oo jaa'izada la bixinayo inuu koowaad noqdo qaar waxa jira marka imtixaanka la dhajiyo warqadaha jeexa ma jiraano iyo qaar jecel marka imtixaanka la dhajiyo in cabaar ku sii dhagsanaado waa jira Soomaa hadii website la soo galiyaan qaar jira ma ayaa baalka ahmada naga aamusiyo marka adaa yaqaan meesha aad ka dooranayso taas waa la kala duwan yahay qof kasta illa qofku amal waxbu qabanaya oo qul i'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wallahu hawsha la qabtay waa lagu wada jeedaa waa lagu arkaya marka waa arin u baahan dhiirigelinteeduna diinteena qabtaba ninkii Jabaanka ahaa ee loo diray dalka Jarmalka si uu u soo barto engineeringka matoorada ninkaas inta meesha tagay 10 kaliya ma soo qaadane wuxuu ku talagalay in wadankiisa uu wax ka bedelo xagga matoorada iyo mishiinada wax ka bedelo matoor waxa soo gatay gurigiisa hal u kala dhigay shiday taas waxay keenaysaa inuu u sabray u dulqaatay ka sheekana marka mabda ugu horeeya waa kana cilmigu maalin kaliya ma yimaado tartiib ku yimaado hal maalin wax ma gaartid meel laakiin tartiib ku celi isku dar mid kala saar waa si kala daa u dhahno guushu ma aha albaab la galee waa jaranjaro Soomaa saas guushu ma aha albaab laga galo ma aha guushu laakiin guushu waa heer jaranjaro kale mid kale inkaas waqti badan wuxuu ku bixiyay Jabaanna waa wax ka bedelay marka waqti badan lagu wuxuu ku bixiyay wadankiisa intuu meesha tago 10 soo qaato oo ayaga ka soo gata ma aha markuu yimaado inuu asagu sameeyo waana guuleystayna Jabaan waa ku hormareen taas laakiin waxa u baahan tahay u dulqaado sabr nina waxa la yiraahdaa Antar ibn Shadad wuxuu weydiiyay maxaa waa geesinimada takent geesinimada la timid kent wax kala ma uu yiri waxa weey ana ku sheegay idib gacantaada idib gacantiisa u dhib bal afka gasho ee ruug waa ku ruugayay uu ruugay ninkii baa yiri wuxuu yiri hadda dhihi rabaanin waaba dhihi rabay intaas aan isdheernahay